Shiinaha oo si weyn uga carooday magaca cusub oo Trump u bixiyay cudurka coronavirus. Halkan waa Qool Media Tv. Shiinaha iyo Mareykanka ayaa isweydaarsaday hadallo kulul kadib markii Beijing ay ka carootay in madaxweyne Trump uu cudurka coronavirus ugu yeero magac cusub oo ah fayruska Shiinaha. Dowladda Mareykanka waxa ay si awood leh u taageeri doontaa ganacsiyada sida diyaaradaha iyo kuwa kale ee uu saameeyay fayruska Shiinaha, ayuu Trump ku qoray bartiisa uu ku leeyahay Twitter-ka. Beijing ayaa sheegtay in ay si xun uga carootay hadalkaas, oo ay ku qeexday mid la macno ah ceebayn. Dowladda Mareykanka waa inay si degdeg ah u joojisaa eedeymaha aan loo qiildayin ee ka dhanka ah Shiinaha. Waxaa sidaasi wariyeyaasha u sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha. Faallo lagu qoray wakaaladda wararka ee rasmiga ah ee Shiinaha ayaa sidoo kale lagu yiri isticmaalka magacyo cunsurinimo iyo nacayb ah sida dillaaca cudurka loogu eedeeyo dalal kale waxa ay muujinaysaa kaliya mas'uuliyad darrada siyaasiyiinta iyo waxqabad la'aantooda, taasi oo kordhin doonta cabsida fayruska. Dagaalka afka ayaa sare u sii qaadaya xiisadda diblomaasiyadeed ee labada dal, taas oo markii hore kasoo bilaabatay muran dhanka ganacsiga ah markii uu xukunka qabtay madaxweyne Trump. Hadalka Trump ayaa waxaa sidoo kale laga dhaleeceeyay gudaha Mareykanka, iyada oo lagu qeexay kuwa dhalin kara falcelin ka dhanka ah bulshada Asian-Ameerikaanka ah. Bulshada Asian-Ameerikaanka ah dadka aad u adeegto markii horeba waa ay dhibanaayeen, umana baahno inaad sii kordhiso isir nacaybka. Waxaase sidaasi Twitter-ka ku qoray duqa magaalada New York oo uu gobolkiisu uu ka mid yahay kuwa sida xun u saameeyay cudurka. Ururka Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa sheegay in kiisaska coronavirus-ku ee laga diiwaangeliyay dunida inteeda kale ay iminka ka badan yihiin kuwa Shiinaha. Caabuqa coronavirus-ka ayaa waxaa markii ugu horeysay laga helay Wuhan ee dalka Shiinaha dhammaadkii 2019. Hase ahaatee, cudurkan ayaa si degdeg ah ugu faafaya dunida inteeda kale. Halkan waa Qool Media TV. Qodobkii hore waxaan rabnaa inaan ku kabno qodobkan maadaama aanu kasoo hadalnay coronavirus, dunidana uu si aad u qabsaday cudurkan. Markaad furto TV, qodobka koowaad ama labaad waaye. Haddii aad page furto, waxaa weeye waa qodobka koowaad ama labaad waaye. Haddii aad taleefan internet haysatid, waxa kuu soo dhacay waa coronavirus. Marka coronavirus ayaa dunida si aad u qabsaday, dadka si aad ay uga saseen. Marka cudurkan maadaama dalkanaga laga soo sheegay, dadkanaga marka maxay ka aaminsan yihiin cudurkan cudur dilaa miya? Ugu horreyn waxaan dul istaagaynaa cudurkan xagee ka bilowday. Sida aan soo sheegay, Wuhan ee dalka Shiinaha ayuu ka bilowday. Cudurkan guud ahaan inta hadda la diiwaangeliyay 160,000 oo ruux ayuu ku dhacay, waxaana u dhintay 6,500 oo qof ilaa hadda inta la xaqiijiyay. Intaa kadib cudurkan aan usoo noqono marka qaabkee ayuu dadku wax u dilaa. Cudurkan cilmi baarayaal ama saynis yahano ayaa waxay ku sameeyeen cilmi baaris cudurkan, waxayna ogaadeen in cudurkani dadka uga daawoobi karaan ama marka horeba ugu dhaco caabuqa loo yaqaano coronavirus-ka ama faafaha maxaa la dhihi jiray dadka ku dhaco sida hargabka dadka uga raystaan oo kale in ay uga raystaan markuu ku dhaco. Haddaba sidee ayay ku dhacaysaa cudurkan? Qofka wuxuu ku gelayaa si khandha leh oo kale. Xoogaa marka cudurka wuxuu yara shabahaa kaduudiyo hore hadda noogu dhacay. Kaduudiyahaas oo macnaha waxaan ka wadaa koonfurta Soomaaliya, aniga ma garanayo meelaha kale. Hadda kahor waxaa jira cudur la yiraahdo kaduudiye. Kaduudiyahaas marka inta badan dadka daawo ma isticmaali jirin, haddii loo isticmaalo waa lagu xanuunsan jiray. Cudurkan marka dhinacna wuu ka shabahaa kaduudiye oo lafa xanuun ayuu leeyahay, dhinacna yara hargab buu ka shabahaa
oo qufaca iyo waxyaabaha kale wato ayuu ka shabahaa. Marka cudurkan maadaama dadka lafaha xanuunaya dadka inta badan ku dhintay waxaa la xaqiijiyay inay isticmaaleen daawooyinka lafa xanuunka sidaasna ay ugu dhinteen. Intaas markaan kasoo tago cudurkan markuu qofka ku dhaco bini'aadanka difaaca jirka ilaa iyo 4 qaybood oo kamid ah unugyada difaaca jirka Ilaahay Subxaanahu wa Tacaala ummadda uu siiyay ayaa waxay la dagaalamayaan caabuqan sida isaga saari lahayd si awood ayay marka dambana ku soo saarayaan oo ay banaanka isaga keenayaan. Waa haddii qofkaas cudur kale uusan qabin una da'ahayn. Intaa kadib waxaan ogaanaa marka cudurkan in aysan dadka sida u maleynayo uusan ahayn laakiin in laga digtoonaado in daawo la isticmaalo. Taas waa taas. Mida kale waxaa jiro waxyaabo looga fogaado oo ah haddii aad isku aragto astaamahaas oo kale cudurkan dunida uu qabsaday haddii aad rabto inaad ka fogaatid Ilaahay Subxaanahu wa Tacaala ka magan gal waa mida labaad argagax nafsadaada ha ku abuurin. Mida saddexaadna kaliya waxaa ku dadaashaa nadaafada iyo la tacaamulka dadka inaan dadka la booqan in adiga lagu soo booqan in dadka aadan salaamin oo gacmahaadan ku salaamin maxaa yeelay waxaan waa faafahana cudurrada la yiraahdo waxa lagu kala qaadaa gacanta lagu kala qaadaa waxaad qabato qof kale uu qabtay salaanta wax wada cunka waxaas waxyaabaha faafaha oo dhan saas lagu kala qaadaa. Viruska waxa la yiraahdaa waa wax faafo. Marka waxaad kaga fogaanaysaa inaad dadka gacanta ku salaanto in aad maxaa la dhihi jiray waxyaabaha ay dadka ka dhaxayaan meelaha bulshada inaad tagtid oo gacmaha ku taabatid inaad tareenada raacdid waxyaabaha public inaad raacdid ama meelaha public aad tagtid. Marka khubaradu waxay leeyihiin waxa fudud in cudurkan in si fudud lagu helo waxa la yiraahdo daawadiisa. Maxaa yeelay gabar ka timid magaalada Wuhan ka timid dalka Shiinaha ayaa waxay tagtay Australia. Gabadhaas 47 jir ayay ahayd. Wax cudur horena maysan qabin. Dhaqaatiirtii waxay ku sameeyeen marka maadaama difaac jir ay leedahay cudur horena aysan qabin markii ugu horreysay cudurka ku dhacayna ay tahay in balse iskeeda isu karantiisho unugyada jirkeeda iyo xaalkeeda ay la socdaan 14 bari ay kaga biskoot. Marka waxaa la dareemay marka cudurkan sida loo maleynayo saska laga qabo inuusan ahayn sida daraadeed waxaan ku baraarujinayaa ummadda inay cudurkan aysan u arkin wax weyn oo musiibo ummadda saf ah oo dadka wada leynaya inaysan u arkin. Waxaan kaliya bas daawooyinka wax kale iska ilaali waxyaabaha adiga ku siinaa difaaca jirka isticmaal. Marka sidaan kuu sheegnana nadaafada ku dadaal haddii uu kugu dhaco ummadda ka maxaa waaye karantiil oo dhinaca soo karantiil ama ummadda ka gooni noqo ummadda ha dhax kicin haddii aad meel uga sheekaysana gacmahaada waxaa gelisaa gacmo gashi kadibna hadhowti shaambi wax soo dhaq meelaha neefaha badan la isku neefsanayana iska ilaali. dadka qufaca hadduu qofka ugu qufacana sidoo kale iska ilaali. Mida kale inaad dadka inta badan waxaa isku dayda aad u jirsato meesha aad ka shakayso hadiiba ay jirto caafimaad ahaan inaad 1 mitir oo kale in qofka isaga soo dhawaanin. Fadlan sii gudbi oo sii shargare walaalaha kale aanan maqlin ama saska ka qaba cudurkan inuusan ahayn siday u maleynayaan. Mahadsanid.